Home Cable TV barnaamijkeenan ray'iga dadweynaha aan alaabo ku soo qaadanaa afkaaraha kala duwan ay qabaan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa qofka ugu horeeya barnaamijkeenan iyo isagoo magaciisa ku bilaabaya daawasho wanaagsan magacaygu waa Xasan Maxamed Saciid waxa weeye in dadku Ilaahay ka cabsadaan baa importana in Ilaahay u toobad caliyaan baa wanaagsan in dambiga iyo dunuubta iyo waxay galayaan iska daayaan baa wanaagsan Ilaahay wuu inoo naxariisan lahayn aynu dadka u naxariisano qoliyahan biyadaan baa jira harraad baa jira dhibaato badan baa jirta bacalaana waxaanu leeyahay war dadka inta jilcsan inuu wada gargaar walaal adigoo magacaaga ku bilaabaya reegaagana ku xigsinaya hayo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirasaaq Suudi Nuur waxaan doonayaa in aan ka hadlo laba qodob qodobka koowaad waa qodobka ku saabsan furashada ururada siyaasadda qodobka labaadna waa xeerkii ay dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada ee Soomaaliland haddii aan ku horeeyo qodobka hore maanta ummadani umay baahnayn in loo saaro guddi oo la yiraahdo madow la geliyo furashada ururada siyaasadda sababtoo ah madaxweynahan maanta xukunka haya ololihii doorashadu ku galay in uu furayo ururada siyaasadda waana qodobkii codadka ugu tirada badan uu kaga helay dadweynaha sidaa darteed waxay ahayd dastuurkuna waa uu ogol yahay sidaa darteed waxay ahayd in maanta aan yooyootan iyo mugdi aan la gelinin ee ururada siyaasadda uu sidooda u furaabay ahayd manay ahayn inuu ka habrado ragga kootada ku haysta xisbiyada siyaasadda ee maanta ee aan doonaynin in xisbiyada dhexdooda lagala tartamo qodobka labaad ee aan ka hadlaya waxa weeyaan xeerkii ay dhawaan ansixiyeen golaha wakiilada ee Soomaaliland haddii aad dastuurka Soomaaliland dib u akhrido qodobka 11aad wuxuu sheegayaa in uu madax bannaan yahay ganacsiga Soomaaliland oo tartan xor ahi uu Soomaaliland ka jiro waxa weeyaan qodobka 11aad ee dastuurka ayuu ka hor imanayaa xeerkan ay dhawaan ansixiyeen golaha wakiiladu sidaa darteed waxa uu kooto ka dhigayaa ganacsigii isgaarsiinta waxaan u xayirayaa cid gaar ah sidaa darteed waxa loo baahan yahay in aan xeer cid loogu danaynin gaara aan qof loogu danaynin aan shirkad loogu danaynin maanta haddii uu madaxweyne Siilaan yiraahdo dastuurka dani iguma jirto dastuurku dantayda ma oga taas waa ayaan daro rabkana Ilaahay inoo shubo salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh